gaalkacyo waa magaalada xarunta u ah gobolka Mudug. Juqraafi ahaan waxay dhacdaa waqooyiga bartamaha Soomaaliya. Badka dhulka ay ku fadhido waxaa lagu qiyaasaa 30 kiiloomitir oo isku weer ah. Waa magaalo ka mid ah magaalooyinkii Soomaaliya ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee qabiilka salka ku hayay burburkii dawladda dhexe kadib. Iminka gaalkacyo waa magaalo heshiis lagu yahay wada deganaanshaheeda ayna ka wada taliyaan maamulada Puntland iyo Galmudug, kuwaasoo hadda uu ka dhaxeeyo xiriir iskaashi oo dhanka amniga ah. barnaamijkeena taxanaha afmeer waa fashilka iyo qabashada shabakado argagixisada al-shabaab ka tirsan oo waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo laga soo bilaabo sanadii 2008 ka geystay kana bilaabay dilal madax jabin ah, qaraxyo gaadiidka la iskugu dhajiyo, gawaari qudhooda meelo lagu qarxiyo. dilalka iyo qaraxyadii ugu badnaana waxaa laga geystay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee ay Puntland ka arrimiso. badi waxaa shirqolladaasi lagu dhakray haldoorkii iyo aqligii waqooyiga magaalada gaalkacyo, ha noqdaan madax dawladeed, saraakiil ciidan, ganacsato, nabadoonno, aqoon-yahano, haween iyo hoggaan dhalinyaro oo aad u firfircoon. geeridu marbay nolosha dhaantaaye inta ay dileen waxaa ka daran inta ay duleysteen oo leh nabadoonno, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo heerka dulinimo ee ugu sarreeya la gaarsiiyey abid. aadna ka garan kartid in la yiri kama qayb geli kartaan aaska haldoorka indhaha u ahaa bulshada ee argagixisadu ay sida fulinimada u dileen. waxaan idiin sheegayaa odayaasha aan fiitada siinay oo nabadoonnada ah 120 kaar odayaalan u sii dhiibnay, hal oday kama fadhiyo oo ehelna ah gobolkana ah, kulligoodna jifidayadii ah, mid kama joogo. oday waliba wuxuu leeyahay laba reer, laba guriyo ganjeelo waaweyn iyo baabuur ku socdo, nolol iyo xayaatuna sidaa ku rabaa. odayaashayada aan qaraabadanahay waxay ku ducaysan jireen markay salaada assalaamu calaykum yiraahdaan ilaahu gunaha naga dhigin. gunnimada ka weyn nin weyn oo laga soo wacayo maxay meesha leh hadda niman baatiga cabdi qaybdiin lahaa barihe wiil yar oo san aqoon soo wacayo oo leeyahay waa ku jeeda daanyeeriyo inaad tacsidii daba kariix tagtay oo dib u dhuuntay. gunnimada ka weyn oo labada reer iyo labada guri oo ganjeelada leh iyo gaariga uu ku xaragoonayo oo ka weyn oo raadinayo maxay tahay, yaani nafta ku jirta qiimo male ba qiimo beesh. taariikhdu waa qormaysa. waxaa iga su'aala dadka reer gaalkacyo miyaysan ogeyn in geerida iyo noloshuba ay gacanta Rabbi ku jirto? miyaysan ogeyn in nolosha dulinimada ay dhaanto sharaf ku dhimashada? taas markaanu ka nimaan waxaa intaas dheer qaadista lacago baada oo si joogto ah looga qaado cadadkeeda saxda ah la aqoon. waxaana argagixisadu lacagahaas ugu yeertaa sakawaad, balse waa naf ku bedelasho. maalinba meel ha joogto, cabsida argagixisada ku beertay reer Mudug barisamaadkii xiniyaha iyo geesinimada lagu tuhmi jiray. xogo la isku halayn karo oo barnaamijka afmeer la hadlay waxa ay tilmaamayaan in qaybo ka mid ah nabadoonnada gobolka Mudug ay markii dambe u bareereen in al-shabaab heshiisyo amni la saxiixdaan muddada u dhaxaysay 2017-2018. dhammaan heshiisyadaasi waxay salka ku hayeen in argagixisada al-shabaab ay la shaqeeyaan, awaamiirtooda qaataan, u duleysnaadaan, cabsina ay ku noolaadaan. ku dhawaad 300 oo qof ayaa magaalada gaalkacyo lagu dilay intii u dhaxaysay 2008-2021, sida ay afmeer u sheegeen saraakiil ka tirsan laanta dib-baarista booliska ee CID-da, kuwaasoo lagu dilay qaraxyo aan loo abayeelin oo ugu xasuus darnaa qaraxii ka dhacay Xero Dayax 21 Agost 2016. taasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 30 ruux oo iskugu jira ciidan iyo dad shacab ah. waxaa intaas dheer dilal madax jabin ah intii u dhaxaysa salaada maqrib iyo salaada cisho kadib. qoysas aan yeeran ayaa xilli xun loo soo sheegay geerida ehelkooda. caruur aan tiro lahayn ayaa la barortay dilka aabbahood ama hooyadood oo si arxan daraa loogu dilay meel ka mid ah magaalada gaalkacyo. murugada iyo ciilka la baday shacabka magaalada gaalkacyo ma aha afmeer wax lagu soo goobi karo. intaasi waa waxaad ogtahay ma kuu sheega
hase yeeshee ahmiyadda barnaamijkeenna bishii May 2019 kormeerkii guusha horseeday ee isbeddelka amni ayuu magaalada Gaalkacyo ku yimid madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo. Kormeerkaasi waxa uu heliyay kulamo uu madaxweynuhu ugu kurgalayay xaaladda gobolka Mudug, waxaana uu la kulmay isimada, ganacsatada, nabadoonnada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo. kulamadaasoo idil waxa madaxweynaha iyo wafdigiisa waxgaradka gobolka Mudug u gudbiyeen cabasho la xiriirta jariimada aadka u fooshuxun ee argagixisada Al-Shabaab ku hayaan gobolka Mudug. maalintaasi wixii ka dambeeyay waxa madaxweyne Dani uu isbedel buuxo oo dhinac walba saameeyay uu ku sameeyay maamulkii gobolka, saraakiishii laamaha amniga. waxaana xilligaasba uu soo magacaabay mas'uuliyiin iyo saraakiil cusub oo carcartooda leh, waana bilowgii go'aankii howlgalka sifaynta Al-Shabaab ee gobolka Mudug. hadal dhabti la arkay natiijadiisa ayuu madaxweyne Dani ka yiri magaalada Gaalkacyo intii uu kormeerka ku marayay qaybo ka mid ah magaalada, kaasoo ahaa jilib iyo jamaama Gaalkacyo looga talinayo oo macnaheedu yahay argagixisada wax fursada ugama banaana magaalada Gaalkacyo. maanta argagixisada Gaalkacyo ku xididaysatay xilligaasi waxa ay noqdeen kuwa cadaaladda la hor keena iyo kuwa baxsada oo raadkooda la hayo. waxaan aad iyo aad runtii aan halka ula yaabay adduunku waa isbedelayaa. reer Mudug qayb baa baqdaan la yiri, baqdin kuma ogaan jirin. marka baqdinta laga sheegayo waxa hadalkaas beesha ma galo, waa lagu ceebaynayaa waan u maleynayaa. baqdinta la iska daayo, dalkan dadkiisa iska leh, cid ma u imaanaysa ma jirayso, cid aan dadkiisa hayno xukumaysana ma jirto. runtaan inay sheegayaa cid kasto isku dayda ama jilib ha joogto ama jabaab ha joogtee reer Puntland ayaga xukumaaya. nin meel kala jira ma xukumi doono ilaahay dhankiisa. idinkana waxaan laga rabaa inaad arintaas u dhignugulaataan. bidaar sabaq way kugu gashaa baa la yiraahdaa waxaan jirin iyo intiin la tustuso inaan meelaha laga soo madmadow aan jirin intii farta lagu fiiqo inaan leelo soo dhuuman baa idan ka digayaa. sida ay iskugu xirnaayeen argagixisadii gumaaday bulshada magaalada Gaalkacyo, tirada shabakadihii Gaalkacyo ka howlgalayay ee ka tirsanaa argagixisada Al-Shabaab, shirqooladii iyo dhagartii ay dadka ku leyn jireen, waxyaabaha u fududeyn jiray inay saldhigyo waaweyn ka dhigtaan magaalada Gaalkacyo, dadkii ay dileen intii iyagu afmeer afkooda ay uga sheegeen, dhaqaalihii ay ku qaadan jireen dilalka iyo qaraxyada, sida loo soo qorsheeyay dilalka dadkii ugu magaca dheeraa kuwii ay dileen. qaraxyadii ka dhacay magaalada Gaalkacyo labadeeda dhinac waa koonfurta iyo waqooyiga iyo sidii loo soo agaasimay. intuba barnaamijka afmeer ayaa mid ugu dul istaagi doona. taxanaha afmeer qaybtiisa koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa horjoogihii argagixisada Al-Shabaab, wakiilka uga ahaa mid ka mid ah shabakadihii ugu horreeyay dilalka madax jabinta ka bilaaba magaalada Gaalkacyo. dilaagii sportiska ahaa Faysal Gujis waa dilaaga aan ku bilaabayno taxanaha afmeer, kaasoo ah ninkii dilalkii ugu badnaa ka geysta magaalada Gaalkacyo. waa sida uu isagu u sheegay taxanaha afmeer. waa 32 sano jir ku dhashay dalka Sacuudiga kuna barbaaray magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo ee Soomaaliya. horaantii 2008 ayuu argagixisada Al-Shabaab uga biiray magaalada Gaalkacyo, waxaana argagixisada Al-Shabaab ku soo diray Maxamed Axmed Cali Cawke oo loo garan ogyahay Cherry, oo ah jilaagii lahaa maskaxda iyo hindisaha Al-Shabaab ay uga howlgalaysay magaalada Gaalkacyo, kaasoo tiir dhexaad u ahaa dilalkii iyo qaraxyadii. yacni waa ninka ugu macnaha badan ilaa hadda shabakadaha la fashiliyay. dilaaga sportiska sheekadiisa aan ku soo noqonne waxa uu isla sanadkii 2008 tababar amniyaadka ee madax jabinta iyo habka tuurista babooyinka loogu diray magaalada Muqdisho, gaar ahaan ceelasha biyaha. waa halkii bilowga u ahayd wadadiisii daadinta dhiigga haldoorka magaalada Gaalkacyo. ficnaan lahayda in maalintaas uu helo cid la taliso oo wadadaasi ka hor istaagta. magacaygu waxa waa Faysal Axmed Bashiir. magacayga xariiqiga waxa waa Gujis. xarakada waxa ugu soo diray Maxamed Axmed Cali Cawke oo loo yaqaano Cherry. way goorma dhalatay, halkee ku dhalatay, aqoontaadu maxay dhan tahay, xagee uga baadhay, maxaad bartay? waxaan ku dhashay Sacuudiga 1989. kadib waxaan nimid Muqdisho. dagaalkii 4 biloodkii baan ka soo kaxnay Muqdisho oo aan Gaalkacyo imid. anoo yar Gaalkacyaan ku barbaaray.
dugsigayga hoose dhexe waxaan ku qaatay iskoolka ummadda. alxamdulilah waqtigaas waxaan ahaa nin aada u da'yar. kabacdi waxaan ku gudbay iskoolka Yameyska oo aan ku bartay dugsiga sare. at that time markaan dugsigayga sare aan dhammaystay iskoolka Yameyska International School, waxaa gacanta igu dhigay Maxamed Axmed Cali Cawke oo i tashkiiliyey sanadkii 2008. wuxuu iga dhaadhiciyey systemka ee dowladda ay ku shaqeynayso iyo dadkaba inay qaldan yihiin. at that time marka caqligayga ma kala go-in sida maanta aan wax u kala garanayo uma kala garanayn. fikir khaldan buu iga dhaadhiciyey oo ah dadkan inay yihiin dad gaalo ah, dowladda iyo shacabkeedana ay yihiin dad aan cadaaladda iyo sinaanta midnaba aan aqoon oo mar walba dadka dulmiya. wuxuu iga dhaadhiciyey hawsha uu ii idmaday ama waxa uu igu tashkiiliyey ee ahayd in aan noqdo gruubkiisa shabaabka ah. markaas fikirkayga ma kala go-in, fikradu igu shubay baa si khaldan wax u fahma. markaas nin daayar baa ahaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin reer baan yeeshay, dad walaalaa baa ila dhashay. ayagoo cunno ay ogeyn baa magaalada ka anbabaxa 2008 bishii 3 oo aan aaday Muqdisho si aan u soo qaato tababarka amniyaadka oo madax jabiska ah iyo qaabka loo tuuro bambooyinka. asagoo igu hagaya ninka mudiirka ah ama macalinka wax tababara oo igu hagayo oo yiri wiilkii gaari baan soo saaray. safar dheer kadib Muqdisho anoo nabadaan tagay. waxaan tagay Muqdisho, waxaan ku degay xaafad oo ii tilmaamay Jeeri, iyadoo hooyaday ay degan tahay, walaalahayna ay degan yihiin. maalin kadib waxaa ii yimid baabuur oo liiri ninkii Jeeri soo diray adiga ma aha way soo baxbaalin. sidii ma isku raacnay waxaan aadnay ceelasha biyaha. meeshaas taqriiban meel aan ku qiyaasayo 5 kilomitir ceelasha biyaha waxay ka tahay waqooyi galbeed meesha tababarkana lagu siiyey. markaas waxaa nala baray qaabka bistoolada loo qabsado iyo sida qofka loogu dilo bistoolada 2 bilood. 2 biloodna waxaa nala barayay habka loo tuuro bambooyinka F1. waxaa igu soo dhaweeyey macalinka magaciisu saddexan baan ahayn, waxaa la dhahaa Abu Mustafa, laakiin lahjadiisa markaan sii fiiriyey wuxuu ahaa nin Soomaali sujuu ah. tababarkii markuu ii dhammaaday waxaan ku ahayn meesha 5 qof. 5teena nin boqol buu deganaa, nin wareysan karana ma jirin, nin kale isxog wareysanay. waana la kala ilaalin jiray. nin walba qolkiisa waxa loogu keeni jiray tasiilaadku u baahan yahay sida kitaabka quraanka ah, cunadiisa 3 waqti meesha lagu keenay. markaas kadib markii tababarka la aadayo kaliya baan kulmi jiray iyo waqtiga salaada baan kulmi jiray. tababarkii kadib markuu tababarkii noo dhamaaday waana la soo ambabaxshay. aniga shakhsi ahaanteyda Faysal gobolka Mudug baan ka tagay. gobolka Mudug baa liis ambabixiyay si aan ugu tago Maxamed Axmed Cali Cawke oo loo yaqaano Jeeri oo amiirka ah markaas, oo markii horena diray aniga oo ambabaxshay tashkiilinteedana lahaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin anoo nabad qaba aan gobolkayga ku soo laabtay. markaan tababarka soo dhammaystay si aan waxa aan soo bartay aan uga xog waramo. anyhow waxaa dhacday inaan ku kulanno masaajidka Ramadaan. waa duhur ah maalin sabtiya 6 saac bar. waa soo raacnay, waxaan fariisanay meheradu asagoo ka shaqeynay oo ahayd markii hore meeshu igu tashkiiliyey. xog
waraysi kadib waxaan iska waraysanay tababarkii siduu ahaa raggii ma kusoo dhaweeyeen wax dhiba miyaa la kulantay mid walbana waxaa uga warramay sida saxda ahayd wax dhiba iyo waxa caqalad ah kalama kulmin meeshii uu igu tashkiiliyey meherada asagoo ka shaqaynayay inuu lahaa in kale allahu aclam laakiin anigu markaas waxaa iga dhaadhacsaneyd meherada asagoo inuu lahaa tashkiilintu markaas waa yaraa haddaa taym haa nin yar baa 13 sano ka hor nin yar baa 31 sano hadda 31 baan jira waxaa soo hareysay 18 jir nin yar baa laakiin markaas qaangaaray laakiin caqligiisa aan si fiican u kala go'in maxaa saxan maxaa khaldan ana fahmin waana markii ay ugu jecel yihiin dadka noocaas oo kale nimanka al-shabaab ah sababtoo ah qof wax fahmaya ma jecla ama qofka fikirka dheer leh mar walbana waxay jecel yihiin dadka aan waxba fahmin oo da'yarta ah ama teenager inay mar walba tashkiiliyaan dadkoodana ay ka dhaadhiciyaan inay yihiin dad daalimiin ah dowladdu ay tahay dowlad gaala la shaqaysa waxaa dhacday fikirkii khaldanaa iyo tashkiilintii inay marba mar kasii dambeysa aan u aamino inay waxaan sax yihiin oo mar walba dowladdu ay tahay dad kuwa dadka ku tacdiya ah oo cadaalad iyo sinaantoona aana ka shaqayn fikradii markaasna ma haysan qof saaxiib ah ama qof i wacyigeliya oo idhaha waxaan waa khaldan yihiin ku socotid soo laabashadiisi ceelasha biyaha kadib iyo isxog waraysi uu la yeeshay horjoogihiisa ka sarreeya ee Jerry waxaa madax looga dhigay shabakadii ugu horeysay oo ka howlgasha xaafadaha Israac iyo Hormar halkaas oo ay ka bilaabeen dalalkii madax jabinta ahaa ee ugu horeeyay ee bulshada magaalada Gaalkacyo lagu dhameeyay markii aan ka soo laabtay tababarkii waxaan ugu imid oo meesha iga soo horeeyay 3 nin Ibrahim Sidow Idris Maxamed Afire iyo Sahal Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo aan ku noqday 4 Ibrahim Sidow waxaa lagu amray in uu sameeyo unit gooni ah oo ka howlgala garsoor anigana waxaa la ii xushay inaan noqdo labadaa nin oo soo hartay inaan team leader u noqdo kadib 14 bari kadib baan waxaan ku soo daray waa Salmaan Maxamuud Suleymaan jaamac Xuubay unit dhammaystiran oo ka howlgasha Israac iyo wixii kale oo howl soo baxda oo hadduu amiirkuna amro in aan qabanno ama garsoor ha ahaato ama Israac ha ahaato alxamdulilaahi rabbil caalamiin muddo kadib anigi waxaa dhacday unitkii in laga dhigo team leader sax ah oo shantaas iga hooseysa aan u noqdo ninka ugu horeeya oo hogaamiye saasa waxa uu noqotay unit dhammaystiran waxa uu si kalsooni iyo deganaan ka muuqato u sharaxaya qorshaha dhagarta iyo sida loo maleego dilalka madax jabinta ah ee bulshada haldoorka u ahayd magaalada Gaalkacyo waxa uu mid u sharaxaya marka la doonayo in la dhagro qof aan ilaalo lahayn iyo kan ilaalada leh qudhiisa oo hab ka duwan kii hore loo wajahayo waa kan isagoo sharaxaya dhagartii iyo khiyaanadii ay dadka reer Gaalkacyo ku dhameeyeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin howlgalka waxaa habeen aan ugu dooranay waxa ahayd waa madow hadii howlgalka maalin la dhaho qof walba arkay meeshan waa Gaalkacyo in la aqoonsado bala diidan yahay qofkaas waxa ku soo hartay habeenka la howlgalayo positionada la kala leeyahay ama qaabka wax loo dilayo alxamdulilaahi rabbil caalamiin laba qaab waajid ah oo dadka lagu dilayo oo madax jabiska ah marka koowaad qofka la dilayo ama la rabo in la dilo waa la sahmiyaa oo rag baa u xilsaaran sahmintaas sahankaas muddo waxaa la siiyaa 3 bari ama 4 bari
afartaa beri oo la sahminayo amarku wuxuu ka imaanayaa maxamed axmed cali cooke oo loo yaqaano jeeri. qofkaas waa la dabagelayaa CV-giisa lasoo ogaanaya. CV-giisa markii lasoo ogaado qofkaas waxaa dhacaysa in la sameeyo 2 habeen oo extra ah meelaha uu tagayo sida inuu hub wato iyo in kale. Okay, qofka hadduu yahay qof shacab ah ama staff uu leeyahay 2 qaab weyn. qofka markuu shacabka yahay oo la soo ogaado xogtiisa kadib baa waxaa loo howlgalayaa 3 nin. qofka markuu shacabka yahay 2 hawsha ay leedahay oo mid hadduu baqo kan kale u fuliyo oo u dhammaystiro ama uu qalqalo. midna wuxuu gacanta koowaad iyo gacanta labaad. haddii gacanta koowaad uu baqo ama cabsi laga dareemo si gacanta labaad ee hawsha u dhammaystirto. qofka saddexaad waa qofka sahminaya oo dadka marin habaabinaya oo dhahaya nimankii meeshaani ka baxeen. waxaa ku soo hartay qofka markuu hub wato ama uu yahay qof dhiifoon ya hubinta meedka waxaa leh ninka sahminta ah oo saddexaad baa shaqooyinkaas oo dhan isku leh. okay, qofka markuu staff wato tusaalahaan waxaa lagu baxayaa 5 nin. 5 nin qofkaas positionka qof walba position buu leeyahay. positionka koowaad haddii 5 ma hubaysna waxaa hubaysan at least 3 ama 2. laakiin muhiimaddu waxa ay tahay hawshaas in la fuliyo. okay, 5 nin haddii markaas hubka la haysto ay ku filan tahay waa laga badsan karaa oo isku tababar yihiin nimanku. waxaa dhacaysa qofka meesha uu marayo inay tahay meel iftiina. 3 qof oo ugu horeysa oo marinka ninka uu marayo ay taagan yihiin ayagoo isku mashquulinaya si inay ciyaara ka sheekaysanayaan ama ay banooni ka yimaadeen oo ay daalan yihiin oo meesha ku sheekaysanayaan. qofkiina ma fahmayo inuu asaga loo socdo. waa u gudbay tusaalahaan wadadii uu galayo waxaa uga horeeya qof kale. qofka kale ninkan markuu uu daba maro hadduu difaac ku jiray wuxuu aaminayaa in aan asaga loo socon oo suspectiga uu qabay badnaa ama dhiifanaantii habacsanaan baa la dareemaya. habacsanaantii markii la dareemo ninkii ma tegina ninkiibu haddana soo dabagalaya. ma soo dabagalay kan kale oo luuqa diyaarka ku ah bistoolada already waa u raacsantaha xabadda gacantuna ku haystaa. at the moment markuu ninka garab marayo oo isdhaafi rabaan xabadda koowaad ama madaxa uga aado ama wadnaha uga aado ama lugta uga aado ninkaas horta xabadda bilaabay. ninkii kale oo ninkii soo daba socday baa ninkan inta daba maro ninka madaxa ku dhufanaya. waa hadduu hubaysan yahay. hadduu staff watana 5 tubo waa loo howlgalayaa. ninka ugu horeeya markuu uu daba maro luuq waa looga hormaraya. ma looga hormaray staffka already waxaa daba taagan 2 nin oo iska dhigaysa niman wadada ayagana maraya. waxay sameynayaan ninkii markuu u soo maro oo loo baahan yahay waxaa dhacaysa ninkan luuqan ka soo baxa. at the moment uu ka soo baxaya ninkan staffka ah kama dhaadhacsana ninkaana loo socdaa. 2na waxay ka dambaysaa staff. waxay isla meeshan waa luuqna qof ka saamara waana mugdi. magar even hadduu staffka xataa horeeyo already nin baa diyaar u ah inuu staffkaas meeleeyo oo xabadda u dhufto. number 1. number 2 wuxuu leeyahay ninka marka staffka loo yahay inuu asna u dilo. waxaa dhici karta staffka iyo ninkaba inay hubaysan yihiin. at the moment 5 tuba waxay ku soo galayaan sida aan ii sheegay 3 gadaale iyo 2 hore. markuu staffka u wato saasina wax walba ay ku dhacayaan. waana sida tababarka naloo siiyey.
baxsashada nin baa u xilsaaran shantaas ah oo dadka marin habaabinaya oo dhahaya nimankii meeshaan kama bixin xaggaanay ka baxeen kaasna waxa weeye ninka waran laha ah aan hubka wadaan oo mar walbana heegan u ah shacabka ama markaas dadka kale oo qori haysta marin habaabin oo dhahaya nimanka xaggaanay ka baxeen luuqaanay ka baxeen loo raadi ninkaas wax kale uu qaabilsan yahay inuu hubiyo nimankii la dilay inay dhinteen iyo inay nool yihiin inuu hubiyo wax kale uu qaabilsan yahay markii nimankaas ee la dhaho waa dhinteen inuu raaco meydka uu soo ogaado in la soo duugay waana ninka keliya oo xogta rasmiga ah keenaya macdal asaf waxaa dhici karta qofkaas inuu ka badbaado dilkaas oo ilaahay qadarti uu badbaadiso markaas waxaa la isku dayayaa baleen b oo ah si ninkan lagu soo afjari lahaa waxaa marka qofkii dhaawac noqdo si lagu soo afjari lahaa waxaa la sameynayaa qaab ka duwan waxaa la iska dhigayaa dhaliilo sports oo xiran maaliyada iyo macuuso oo soo caafimaad qofba ka soo ogaanaya inuu ninkaas nool yahay iyo in kale wuxuu u qaabilsan yahay oo tiimku u qaabilsan yahay inuu soo indho-indheeyo xaaladda ninka ma ka soo baxay isbitaalka mise kama soo baxin ma dhintay mise waa nool yahay ninkaas ilaa uu taxqiiqa u keeno howlgal labaad lama galayo marka waxaa dhacda qofkaas inuu biqduuratillaah uu ka badbaado oo tiisi ajashiisa wax ka dhimanta okay markaas waxaa la diyaarinayaa baleem kale oo shaxdii hore ka duwan oo la isku dayayo ninkaas si lagu soo afjar lahaa haddii aan leedin koox kale loo diro iyo kooxdii shaqada qabyada ka noqotay inay dhammaystirato afoonta laba waxyaalood waa loo qaataa waxaa loo qaataa midda koowaad raxan reeb raacda reeb baa loo qaataa oo ah meesha howlgalka lagu fuliyey inuusan qof kale niga daba imaan ama dadka uusan garan tusaalahaan waxaa laga yaabaa maqribka ka hor inay hawsha ay dhacdo iyadoo loogu talagalay bacdal maqrib inay dhacdo oo isfaham darro xagga ay ka timaado so marka waxaa loogu talagalay marka koowaad maqribkii ballanka ahaa iyo bacdal cisha sida amarka noola siiyey iyo ma waxa cunto barkaan kusoo qaadan waxaa laga yaabaa qofka la diray inuu ka noqoto inuu arrinta dedejiyo isagoo isla waqtigaas isku day inaad meesha ka baxsatid midda labaad oo ah in markaas meel loo socdo ama xarun dowladeed ha ahaato ama meel ay shacbi isugu yimaadaan ha ahaato in ayadana lagu turo oo fisqiga lagu daawado meelaha filmaantii waxaa lagu daawado in lagu tuuro intaa markaan ka imaano qaabka tababarka iyo hawlgallada u samayn jireen adiga gujis maxaa lagu bixiyey gujis waxaa lagu magac daray submarine waagaas waxaa fudud oo haddana sports ah dheereeyana saasay magaca ugu baxay gujis aniga ka faysal ahaan faysal axmed bashiir oo faysal gujis ah waxaan gacanta koowaad aan lahaa 15 qof inta hadda aan ka xasuusto waxaa ugu horeeya